khiyaartana daawatay waxaan ku sugannahay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waqooyi bari Soomaaliya waxaa la jooga Axmed Salebaan Cali Dhokir oo ka mid ah ciidanka biliiska waqooyi bari Axmed waxa xusid mudan inuu la soo shaqeeyay dawladii Ingiriiska si kacaanka iyo dawladii kale ka horeeyay Soomaaliyeed wuxuu kaloo ka soo qayb qaatay oo la soo shaqeeyay ciidamadii biliiska ee maamul goboleedyada ay ka mid ahaayeen Puntland iyo waqooyi bari oo haatan joogo waxaanu kala kulannay saldhigga dhexe ee degmada Buuhoodle Axmed waan soo dhaweynayaa marka hore Tanlaale farxad gaar ah ay tahay iyo taariikh inaynu halkan ku kulanno waxaad dadka ku daawanaya u sheegtaan markii ugu horeysay boolis faro 60kii 60kii ayaan watay Ingiriiska qoray lix bilood ma dheeraan ku jiray oo askari la ciyaarsiinaya Ingiriis ciyaarsiinaya xagee laga qoray markii too ورور صح لح بلود وحارها لح بلود أفكار بريفرال فضلت بلود لو حارها أيها شيء اسمه بيتشن دبوغي منديرة بركي عن فصحة كالصوت علي أيها المهم قروي وابير يره maxaan ku dhadaa oo gawaaridii wixii soogday gawaaridan ba jirin gawaardu wax yar bay ahayd gumaysto wato haddaba fardaa joogay niman carabku ay leeyihiin baa oo meesha deganeed carab fardihii saa loogu dabaaldegayo iyo gabadha xumayd oo loogu dabaaldegayo maxaa markaa loo dabaaldegayo kiibal muusaar kaasan shanta gees baa markaa saaran yaa saaran inbaxdii ka dambaysay ingiriiskii ariga muddan cagli u ahaa markaas markii la kiciyey buu yidhi ina keen markaasaan anoo Soomaaliya haysta maxaa ingiriis raaciyey markaa dawladdii baa dhalatay aadan cabdulla cismaan markii liisiyaal baa haystay shacaba naqsaabiyo markii ay muddo haysteen baa waxaa aadan cabdulla cismaan soo baxay markii aadan cabdulla cismaan loo doontay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya xageedaad ka hawlgashay waxaan ka horay xamar markaa caasimadda ahayd muddaan joogay waa lay soo bedelay berberaa lay geeyey waa ka soo noqday ilaa 5 sannadood 6 sannadood mooja waxay ahayd ayaa haddana xamar ku soo noqday ayaantii cabdirashiid la saaray cabdirashiid la doortay doorashadii ugu horeysay Afrika dimuqraadiga la kala wareego 45 gaari baan ku xareeyay shabaqle aan saaray oo halka intay qaar ka soo xirtay iyo halka ay ku reebeen qaarna halka intay ka xireen bay halka ay ku reebeen macaarid bay ahaayeen 45 baan ku xareeyay sheekh ku xareeyay markaas يدير ولا قلعان هذا ودحقي الناس وكوه دحدير وصل قوية كل وقت دير بصمرت التاريخ بطلنا بعض هيسا محاط كحسوس هاي وكوية بدنا انتياد استعمال كل شيء نسي واحد على غياب الوضع وكرة مانشستر تتقاهي تتاسا يقول لا يقول دبات عمرتي بربر كي دولتي كعام كوي بربرسي كويس واي هاي هيتاش شنقوري والميل كحسين كل قبل نقول شنقوري midna waa soo qaatay shan meel baan faxsay waxa sheegaya Ingiriiska marka la shaqeynayay lagu qoray dhibooq aad galaysaa berbera yani madheeray lagu geenayay waxa igu cajaableen habeenka loo santariya oo ninka gaalku ii soo galgashay waardiyaad ma ku jirtaa waardiyaan ku jiraa saasan qoriga u haysta dhiboobaana markaasuu xidhay inuu dee qoriga iga qaado laabay ku dhufto askarda fashilmay lootay ku dhufto oo qoriga dhufto tanin baan ahay saasoo iyada fajig baan ahaado waxaan arkay isagoo halkaa soo galgalanaya ana hal qabdeen 3 jeer markaan yidhi beerka dhulka dheebaan wadda kaga qaaday san halkaa uu fooda ku soo yeemaa halkaa ku dhuftaya hortiisa san indihii
iyo quruurixii iyo dhagaxiiba wixii baan dhihi shah markaasuu baas waa baasay imtixaankana saas ugu baasay waayahay alif buu isiiyey meeshaan waa lagu dilayaa oo lagu xirayaa subaxdii waa alif ugu taagaan oo dhibboole waa darashadii koowaad markaa qaadato koowaad hadda darashadaad maxay taa dowlad kaga dhacdo hadda dowladda waxay iga dhacday dhow darasana qaatay maantii afweyne maxamed siyaad bar kabtan baana kabtanka markaa bromoshinkii baa ii yimid lacag kuma aan qaadan laakiin waa ii yimid bromoshinkii baa ii yimid iyadoo aanan lacagtii weli ku qaadan ayaa mushaarkii yaa markaa waxaan soo maray laba xidigle maxaan ku dhahdaa haddeer oo ugu dambaysay haddada saddex xarig baan maasha allah haddeer saddex xarig baan markii dowladdii ay dhacday nin walba gurigiisii aaday buuhoodlaa timid waxaan ugu maqaalaa inaad iskaasu xilqaabtay bileys aasaastay bal dhacdada kana reer baan iska tabcaday baadiyahan isaga baxay waa imid anigoo laasanoo sugoo guri ka dhisanaya ayaa halkan cod laga soo qaaday buuhoodla iigu yimid laascaano gurigii oo maraya markaa 2 mitir maray qabyo kuga waaba layla bood marka askari ahaan iyo waxaa la garanaya aqoontaada Abdullahi Yusuf yaa diyaar صح لغة بس Abdullahi Yusuf baa markaas soo reer baadiya markaa maan ahayn Abdullahi Yusuf markaas markaan muddo la shaqeeyay markuu arkay saddex alf gutay markaa wax dambe ma yaqaan waayahay intii dowladda Soomaaliya markii la soo gaaray ilaa Puntland waa soo shaqeysay ilaa iyo qoy bari hadda la joogo inta saldhig booliis baa joogtay kiiskii kugu qosolka badnaa saldhig booliis aad ku aragtay dad loo soo xulay lagu yimaado ma noo sheegi kartaa ما كمش هيك كرتد waxaan hadda halka ku soo gaaray rabaha midna inaan mas'ali inaan u bareedo mas'ali صح waxaana inaan oo aan arkaya inaan qowmiyad صح beesh inaan sheegana muddo صح been inaan sheegana muddo kuskaan hadda waxaad silaaxdaa qodaya waxaad imika xageera filka aha isku daatahay maanta waxaan ogahay nin Cabdi Yahdo hadda tayaantii inta hoosna bileeska ninkaasaan ku arkay wax jooga wixii kale dhintay xagee ku dhalatay sanadkee sanaad sanadkii garan maayo diraac baan gashay baa leeyahay golosha la qalan jiro abaara صح oo ayntaa la joogo صح dadku ayntaas u degi jir هذه بعض ما صنتهاي وكاغا بعض دقيقة حنشا مركز سن ما فدي سيدا سكة قروح بدن aan isku wareysano taariikho badan iyo dhacdooyin badan aan ka qornay tan waxaan ku talagalnay inaan dadka taariikhda la wadaagno aad iyo aad baad ma santahay ilaa cumriga iyo caafimaadka ku barkay